meeshuu islahaa waad ku badbaadaysaa ayuu beelihii uu ka dhashay meel ka mid a halkaa ugu yimid xiran iyo xeer ayaa magaranaysaa meeshaa ku soo dhaweeyey ilaa iyo dhinacii hobyo faax uu ka degay way keeneen cadaadu yimid halkaa marka ay joogto annaga xawar baa joognay waa maqalnay warkaas dawladdaa noo yeertay waxaa la yidhi waxaan idinka codsanaynaa odayaashii Saleebaan ee xuman iyo xeer ku arkisanayay inaad xasan daahir aad na soo gaarsiisaan baan idinka rabnaa dawladdaana tiri sidaa markayna yidhaahdeen waxni haddee xasan daahir waad garanaysaan sidee ku keeni karaa annagu waa nin ma garanaysa aan idin aaminsanayn annagu haddee nin adinka idinka cararahaya oo aan adinka idin adeecsanayn oo adinku aadnaan adeecsanayn seedaan aan ku keenaynaa waa nala hadleen waxay yidhaahdeen xasan daahir annaga walaalkeen weeye hadalkaas waxaa noo soo jeediyey ninka la yidhaahdo madaxweyne xasan sheekh iyo cabdikariim xuseen guud wasiirka arrimaha gudaha waxaa la yidhi ninkaan annaga walaalkeen weeye waa taqaaniin annaga dad nagama dilin dunya nagama dhicin dambi nagama gelin dad bay isqabteeno waa nin uu magaranaysaa siyaasiya oo arrimo dawliyeed ay dad isku hayeen wax dhibaataa waa inaga noo geysta lama arko asagaan soo dhawey u danaynaynaa asagaan magaranaysaa dad badan iyo dawlado badan baa goobahaya nin halyaayaho walaalkeenahoo nala dhasho weeye asagaan u danaynaynaa waa soo dhaweynaynaa meelaha yacniga magaranaysaa meelo waxaa jira maraykanku uu ka mid yahay oo jawdoonahaya sidii uga nabadgeli lahaa oo magaranaysaa liiskaas uu ku oran yahay aan dawlad ahaan uga tagi lahayn ayaan annagu abaabulkeed gelaynaa waxaa laydinka rabaa ninkaas inuu noo yimaado wax dhiba gaadhsiin mayno walaalkeen weeye meel baan dejinaynaa waxa uu maanta asaga uu magaranaysaa cabsideedu haysaan ka bixinaynaa sidaas bay la yidhaahdeen sidaas awgeed waa inaad ninkaa noo keentaan oo qayb ka qaadataan markay sidaasna yidhaahdeen waxaan nidhi ninkaasi hadda waad garanaysaan rag buu la joogaa walaalihiis buu walaalayaalow meeshii aan ka imid dhib baa igu haystay waan idiin imid way magan geliya ayagiibaa soo dhaweeyey hadalkaas aad sheegaysaanna haddaan annagu halkaa ka qaadno waxaa loo qaadanahayaa inaan ilaahayba haddaan laga waayin annagu hadal aan soo abuuranay ha laga yaabaa uusan naga aaminin waxaan idinka rabnaa qabiilka uu ka dhashay oo reer maxamed madadkacis nimanka cayr ku magac dheer inaad u yeertaan waxa aad noo sheegteen aad u sheegtaan hadday ku qancaan inaan israacno oo aan u tagno oo wixii aad noo sheegteen marka ayaga u sheegteen aad isku waafaqno aan u sheegno arrintaan aan ku shaqayno sidaasaan nidhi way naga aqbaleen waa u yeedheen balweyntii cayr arrintaas waa u sheegeen way ku qanceen waan qaadanay waan tagnay waxaan ka degnay cadaadaanu ka degnay garoobka cadood baan ka degnay isla maalintii baan u tagnay waxaan nidhi sidaasaan ku soconnaa xasan daahirow inaan la raacdo dawladda inaan kuu geyno in ma garanaysaa liiska laleeyahay waa ku jira dawladdu ay ku dadaashay in lagaa reebo inaad yacniga dawladdaadii iyo siyaasadaadii hadday qatar ahayd iyo hadday sacuudi ahayd iyo hadday masar ahayd meelihii adigu aad la xiriiraya toos aad ula xiriirto dawladdaada aad ku raacdo sidaasaan kaa rabnaa arrintaas waan nidhi waa ku adkaatay markii saas ay u adkaatay annagu markaas waxaan nahay raggii Saleebaanka ahaa baan nahay waxaan u nimid meeshii waftigii cayr uu fadhiyaan nimid waxaan nidhi sheekhiga u tagnay arrintaasna waa isku yacniga isku ana waafaqin hadda raacda reer baa tihiine u taga u sheega ma dabkeedna aan isku nimaadno cayr waa u tegey waxaa la yidhi waxa Saleebaan kuu sheegay waa run dawladdii baa nagula soo hadashay ilaahayga haddaan laga waayin waxaan rabnaa inaadna raacdo baan doonaynaa madaxdii cayr baa tidhi 25 nin baa socota oo kurkii cidda ah ugaasku hogaaminahayo sanamadu ay ku jiraan dadkii waxgaradka siyaasiga ah ay ku jiraan dhallinyaradii ay ku jirto
aan kala maqnayn hadal badan bacdigeed xasan waa hadlay asaga califna waa la hadlay sawaana waa la hadlay wuxuu yidhi haddaad adiga i doonaysaan oo intiinaani aad ku soo raacdeen inaad ii wadaan intii uu dhihi lahaa saleebaan iyo xelan iyo xeeb falahaayeen oo ay dhihi lahaayeen waana ku soo duulay balaayo xasan daahir saa noo timid intay dhihi lahaayeen ninkaasaan usoo dhaweynayna waa maalgudin inta adinkay dhihi lahaydeen waa soo doonnay waana la diiday intaad dhihi lahaydeen waa idin raacahaya waxaase idiin sheegahayaa aniga nimankaas haddaad ii geysaan igama nabadgeli kartaan ma iga nabadgeli kartaan ogaada ayraboorkaa la iga kiin reebanahayaa waa nin militariya oo siyaasiya oo hadda wax aad iyo aad waxu yaqaan war ma ahee annagaa soo ogaanay arrintaas wax kula hadlaaya iyo wax ku taabanahaya midna lama arko sidaas ayaan labadeennaba isugu dhaafnay waxaan ku heshiinay oo aan nidhi weliyaaya aniga may maqlaysaan aniga ayraboorka iga dejinina meel kale iga dejiya ayrabooradaha sida ama balidoogle ama meesha la yidhaahdo lamarkonton ama meel iga dejiya nimankaan iga daaya gaalada ah iyo balaayada meesha dhooban oo aan naxariistan iga daaya maya ayadaa noogu fudud baan nidhi ayadaa noogu fudud baan nidhi runtaaba sheegaayo ma og tahay marka aan saas leenahay wuxuu yidhi bari lab kama malaysan banaanna qodax kama malaysan warkiina la yidhi oo madaxweynuhuna yidhi oo wasiirka arrimuhu guduhuna yidhi annagu in lagu qatalahayo uma qaadan xasan in lagu qatalahayo uma qaadan walaalaheen run ah oo jiirkeennu isku yaal inay yihiin baan u qaadanay shaqada aan wadno inay ka mahad celinahayaan baan u qaadanay waxaan u soo jeedino inay yeelahayaan baan u qaadanay wax shakiya kama aanan qabin halkaa markay marayso waxaa la soo hadlay janamada janaal suuxaayo iyo janaal indhacadde baa la soo hadlay sida ay noo sheegeen wasiirkay la soo hadleen waxay yidhaahdeen wareede ninkii waxaan isla garanay guri in la dejiyo kaleeto oo adinku aad ku booqataan oo ciidan saafa u keentaan oo aad la joogtaan sidaas ayaan magaranaysaa aan garannay maxaad ka yeelaysaan waxay noogu sheekeeyeen inuu yidhi aniguna waa idinka aqbalay madaxda kaleeto oo yacniga dawladdan waan ka gadayaa arrintiina ku shaqeeya arrintii waa noo sheegeen waan ku shaqaynay xasan waa aqbalay isagay ka muuqato waxaas la sheegahayaa inay dhalanteed yihiin ayay unaga aqbalay yaa ogaan doontaan buu yidhi waase idin raacayaa alxamdulilaahi waa u ducaynay waana ku faraxnay dagaaladii maan soo saaray waxaanu nimid meesha la yidhaahda ayraboorkii baan nimid markii ayraboorkii aan ka degnay waxaan aragnay niman tiro ka badan oo afafku duuban yihiin oo sidaa uga hareeraysan oo mayinaada bismillaahi war maxay ahaayeen nimanku waa ka degnay markii aan ka degnay wasiirkii baan weydiiyey wasiirkii aawi waa la waayey wasiirkii waa la waayey waxaan aragnay ninka taliyaha nabad sugidda loo magacaabo leena bashir goobe baa jooga war wasiirkii aawi war annagu waxaan islahayn hadde ayadoo wasiirku fadhiyo madaxweynihiina uu asaga meel laga dhow yahay oo laga gaaro uu joogo sida laydinkugu heeloon yahay sida laydinkugu mahad celinayo oo laydin jecel yahay baad meesha tegi doontaan waa sidaa annagu aan ku xisaabtanaynay muslim uu ku sheeg baa la yidhi sida loo sheego una u qaado waa sidaan annagu u qaadanay annagu ka malaysamayn in nala khiyaameeyo oo war aan run ahayn naloo sheego walaalaheen run aan u haysanay nimankaas madaxdii dawladda ilaahay noogu dhibana waa ahaayeen kana malaysamayn wax yacniga khiyaano ah ma ka malaysanayn ninkii waxaan warkii la iga tegi iga kooyo warkii waxaan warkaa koogu mayno aawo wasiirka aawo adaga ku fududaysan mayne ba horta wasiirkii noo waa annagoo 8 nin ah oo 4 nin oo Saleebaan iyo 4 nin oo Cayr ah deeyo balna keena halkaasuna mariyay haddii ilaahay aan laga waayin labada janan oo ninka la yiraahdo janaal indhacadde iyo janaal suuxaayo ninka la yiraahdo saciid suryadahan hadda fadhiya faarax yare
عرض نينك اللي يرادو عبد الكريم عداه يري عشان تعصبي أحيان إيا لما حلبان كي نينك اللي ما مدنا مدين لما حلبان نينك اللي كوي في سبق iyo Cabdilqaadir iyo aniga iyo Axmed Qoorqoor mahad baa marda manooyin xilbaan mahad baa marda manooyin halkaas aan fariisanay tobankaasaan nahay waxaan niri ninkii waxaan noo tin laba wasiir oo ninka la yiraahdo Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo xogiga wasiirka Shandhiga baa noo yiri awal waxaan la joogay Bashir Goobe iyo ninka la yiraahdo Bashir Ereg baa nala joogay خليفة رك بعد لا تشوفي waxaan u soo jeedinay waxaan soo halka waxa la fadhiya kontonin eegaas uu ka mid yahay ayaa banaanka la fadhida sheekha la fadhida iyo ragii la socday kontonin baa gamaanadan u fadhida waxaan raga halka fadhiya oo anaga naga soo wadeen waxa dhex fadhiya xasan daahir baa dhex fadhiya waxaan ka codsanaynaa walaalaha yow madaxdii iyo wasiiradii iyo magaranaysa dadka aan jeclayno dadka anaga noo diray xasan daahir oo nafaradow waxaan u sheegnay xasan daahir walaalnimada iyo jacaylka iyo wanaagga ugu tamaan u sheegnay waxaan u sheegnay in magaranaysa meel fiican la geynayo waxaad u dhibaysaa inaan la arag baan u sheegnay waxaan ka codsanaynaa inaad sheegistii anagu aan sheegnay inaad marqaati noo furtaan inaad u tagtaan inaad u taxsiyeysaan inaad si fiican u salaantaan ballantii anagu aan la soo galay halkaanu fadhiya hub ma wato basoolad ma wato bumbo ma wato cimaamadiisii baa madaxa u saaran iyo qamiiskiisii halkaasuu fadhiya hore kuma idnaan bixin xog kuma idnaan bixin adinkuma idnaan keenin annagaa keennay intaan ugu sadaqa oo naga yeela walaalayaalow oo asagu inaan ruu sheegayna ha ogaado oo adinka yacniga ha dheereyto sharaf iyo amal haydin noqoto oo dadka dambe asaga masalkiisa ah sidii aad u soo dheereysaan iyo wanaagii aad u gashaan ayaguna ha ku aragtaha u yeesheen oo ha ku yimaadeen oo siyaasiyan ha ahaato oo ballantii aad ugu ogaadeen ha noqoto intaa naga yeela baan iska codsanaynaa walaalayaalow waa isku dhaafnay tobankayagii waa hadalkaas ما كنا لاحم وحي الله الملكي هذا رأى هذا هذا هو الحياة إنا لله وإنا إليه راجعون وما حتى نريد وصبر ما نالهين ما حتى نريد هذا دهننا وصوت الماهن وصوت الدين ماهن ولا الله هذا دهننا والغلا ترتيو كله من دبر كل أمركي أنا ونعصينا إذا أعوض أيضا هالك أي ليهين أيها نكي لورسل بشير وحيي الملدان عن البحر الدولد وسيسلي إيو نكي كلاوسان نرخى ونسوي ده أنا دولد بحر وحن الوام هسنتين دولد بحر هو الأرك جري أو رجل أرك جري هدي أي أرنتو حوغا أتكاطو إن ترسل الله صلى الله عليه وسلم دولد الله بحر لكن دولد الله بحر وأنا بلقاري